yiri waan kula joogaa dee airportkan kasoo degay mar dhowna hotel hebel baan imaanaya waa inaad iigu timaadaa. shondhaagi may walaalkay ice thank you ice walaal qaali ah waa ka asagoo markiiba ordaya hotelkii markuu yimi yiri hadda soo carar waa aniga orday hotelkii ugu tegay waan isaragna wuxuu yiri dee biri odayaasheedii baan u sheegaya arrintii birina waan kusoo doonanaya markaa shopping yar iyo alaab yar wiista wuxuu yiri giftigaasna waan kuu sidaa dee wax ka badanna waan ku wadaaya intana sii qaado birina waxaan ku idhaahdaa haddii ilaahay idmo waan imaanayaa si fiican baan u sheekaysanaynaa haddana iska bax. marka adiga maxaa kaa qaldan soo kinina ku guursanayay isla markiiba guriga markaa imi ogaaday inuu joogay aan soo arkay ee aan xaqiiqsaday daawal waxaan islahaa ilaa intuu ka imaanayo iskuma halayn kartidoo ninkan waa ninkaad ogeydi ha u sheegin kan kale. markaa sidaa guriga ugu soo laabtaa waxaan ku yidhi walaal may maqlaysaa anigu soomaad ogeyn inaan wiil jeclahay soo kuumaan sheegin oo adigu indhahaaga oo 5 amaad arki jirin. marka kii maskiinkaabad ku leeda kii maskiinkaabaan ku yidhi ku jeclaha soomaad ogeyn indhahaagoo 5 ah in maxaan ku idhahdaayey aan jeclaayo ii imaan jiray soomaad ogeyn inaan magaciisa gacanteyda ku qortay waa gartay marka waan ogaayay soodiga igu yiri uu iska tegay waan kala harnay maxaad waxaad igala hadlaysay maxay tahay wixii waxba ka socon maayaan wuuna yimaaday birina asagiiba ay guursanayaan ku yidhi adkaatay fogaatay oo kulaatay wuxuu yiri saa maxaad igu gelaysaa hadalka maad ka laabatid waxaan ku yidhi adigu soo aniga ima jeclid aniga soo adigu igama maarmi li'id ana asaga kama maarmo marka dee anigu qofkaan jeclahay ayaan aadaya adiguna dee jacaylka adiga ku haya ana isaga iyo hayaan ku idhi kamana maarmo adigana kuma guursan karo khiyaalina inaan kugula noolaada ma rabaan ku idhi kii inankii sidaastuu igu yiri asagoo ila hadlaya wax iisoo jawaaban waan waayay halow telefoonkii wax juuqaya ma anigu waaba sidaan rabay waan iskaga damiyey show isla markiiba inankii wuu sooxayo dee naxdintiiba waxbaa kusoo booday isla markiiba laa xawla walaa quwata illaa billaah kow ilaahay kaagama taga ma ku dhahdaa ma habaarnaaniyow kul nafsigaas kugu dhacayaa ku soco inankii caruur walaalihiisa oo guriga aabihiisu joogaya caruur yaryar walaalihiisa usoo galay cashiimo waxbaa loo keenayay adigu way arkeen inuu isa kacayn ilaa subaxdii wiilkiina shaqo u kicin show habeenkii oo dhanba inankii meeshiibu iskaga suuxsanaa aroortii marka waagu baryaa custaa la geeyey marka waxaa jirtay inan saaxiibada yahoo ay iyaga daris ahaayeen oonu isku fiicnayn oo isku kaaya taqaanayna inantiibaa iisoo sheegtoo tiri hebel dhakhtar baa la geeyey war uma haysid miyaa markaasaan ku yidhi war uma hayee dee anigana waxaan ku idhahdaa arooskayga kusoo dhawow maanta laysoo doonanaya inanta waxay gu tiri wiilkii koomu ku jiraa dhakhtar baa la dhigay falembooyinaa ku xiran 2 sano adiga dartaa u ururinayay oo naftiisa uga xiray noloshiini aqalkaagii iyo dahabkaagii ballantaa uga bixin dee waxaan ku yidhi anigana 2 sano oo hin iyo waxay ii ahayd hurdo la-aan qofkaan jeclaa marka qofkaan jeclaa anoo arkaya qof aanan rabin ma raaci karaan ku yidhi cajiib sheekhow inantii wuxuu ku yiraahdaa marka hal mar le aan arko hal mar ha ii timaado markuu koomada ka soo baxay ma arkayaan ku yidhi kii waagu markuu beri adigu maalinkii wuxuu yiri waan iska nasanayaa maalinkii ku xigtay asagoo nin adeerkiisa watuu yimaaday wuxuuna igu yidhi anigu hadda kadis baan kusoo baxay inaadan adigu nin kala guursan darteed baana usoo baxay
waan isguursanaynaa 7 beri baan hoteelka joogaynaa tigirkaygu waa wax yar 7 beri keliyaan haystaa go-aan baagta shaqaan leeyahay marka hoteelkan 7 beri joogaynaa waana ku guursanayaa dahabna waan ku gadayaa markaan soo laabtana guri baan ku dejinayaa si fiican baan arooska ugu dhigayaa waayahay baan ku yidhi ilaa waa jeclahe inankii marka 50 garaan oo dahab uu ii diyaariyey kan wuxuu igu yiri 10 garaan baan kuu gadayaa markaan maadaan dee kuu gadayaa dahabka kale arooskaaga iyo adduunkaagaan dhigayaa oo magaalada dhan isugu imaan doontaa waan ogolaaday anigu dahaba maanaa rabaa ninkan baan jeclahay ajaib sheekhow waayahay waan ku idhi ugaasi baarka internetka ma kaa xun miyaa dig soo laab ugaaso haye inankii sidii baa meherkaygu ku dhacay 7 beri baan hoteelkii joognay waxaan ku idhi 7 beri kadib wuxuu igu yiri dee waqtigaygii baa la gaaray waan baxayaa xaafadiini aad waana isla soo xiriiraynaa sidii baan ku maxsalaameeyey waxaan ku yahay caada ku erinaya haye waa ka maxaan ku idhahdaaye inankii dee markaan islahaa hadda uunbaa dee xaaskiisii noqotay xiriirku sidii hore wuu ka fiicnaanaya ninkii 2 bilood kadib intuu iska aamusay 2 bilood kadib kusoo wacayay nin ka fiican buu noqonayaa way lugeynaysaa magaalada dhex socotaa ka war waa ka maxaan ku idhahdaa yiri dee aan islahaa xiriirku sidiibu ka soran har iyo habeen buu kula xiriirayaa maadaama aan dee hadda idiin kala qarsooneyn oo nin iyo naagtiisii noqoteen oo dee waxaan ku idhi xaaladdu inta way ka fiicnaanaysaa baan islahaa ilaah waxaada ku jaajaa imsaa ku farxaya hadhow markay xaaladu jaajeexaan gacanta soo taaga inta caawa ku farxaysa inay idil xaaladu jaajeexaan anu koobaa kahay wallah masaajidka oo ka kacay ku soco waa ka maxaan ku idhaahdaaye alla xaasidsanaa kulligood haabay soo wada xaasidii maaha ku soco 500 qof ina gaadhaan weye qosolka wada taabta inta ku farxaysa qosolka taabta ku soco waata ilaa intiina hurda soo kaca qosolka wada taabta 500 gaadhsiiya ku soco inankii waa ka dee meeshii xiriirkiiba uusan waxbaba kasoo reynaynba sidii ay xaaladu tahay kasoo reynba male isoo wicin anaa kusoo ma inaan ku baloogaa doonaysaa isoo wicin anaa xilligaan anigu jaanis helo anaa kusoo wacay mar waan hurdaa mar shaqaan ku jiraa ima soo wici kartid kaaga daranta maxaan ku dhahdaaye meelihii qadkii wixii oo dhan wuu iga baloogay qadkii aan ka wada xiriiri jirnay facebookii telefoon cusub buu isiiyeyoo xidhanba markuu asagu iga soo wacayo keliya ayuu ii soo gelaya isaga keliya ku soo wici karaba asaga keliya wuu isoo wacay wuu ila hadlayaa telefoonka wuu xidhayaa wuu kaa xidhanayaaba wuu iga xidhanayaaba maasha allah takbiir maasha allah farxadii koowaad ku soco inankii maxaan ku idhaahdaaye asagu siduu koomadii ugu jiray kii 7 beri ula jooga dhakhtarkii buu yaalay quraan ha la saaro shaqadii sidii buu ku joojiyey gurigii baa la keenay iska jiifay inankii bukaan buu iska noqday matag 24 saac uu iska mategayaa wax ma cuno dee awalba nin shaqa dee ka tabar badan oo ka xoog badan hayay buu ahaayo xil ka weyn isa saaray oo dee intaa ordayoo rafaadaya rafaad kaloo xanuuna ugu sii darsoomay sariir buu inankii ku urura kii miskiinkii laa xawla walaa quwata illa billah commentiman ku qoslayay ma maskiinkii waxa sariir saaran miskiinkii sariir buu ku urura inantii aan saaxiibada ahayn baa mar walba u tagtaa daris bay ahaayeen markaas wuxuu dhahaa hal mar le aan arko hal mar keliya aan arkay ha ii timaado sidiina uguma tegin uma tegin musu jiifaa
wuxuu jiifaa markan bil bayba sii socotaaba dee bil bay u dhibto bil markaan joognayba anigana waa isa soo baadhayoo waxaa noqday positive xaalad kalaan gala asagiina custaalkii markii laga soo saaray gurigiibuu iska yaalaa shaqo ma jirto halkiibuu iska yaalaa dee waxaan ku yidhi aakhiriya adduuntoona ma joogo 24 saac waa maruu iska ooyayo magacayga ku dhawaaqayo dhalinyaradii dee dariskii iyo wixii ay siqaaneen iyo wixii faamilkooda dhan baa u imaanaya markasta dee xaalad kale oo aan laga sheekeyn karin buu inankii galay rafaad adduun qof bilaaadana dee si aan laysu raacin buu isukay raaciyey mar walba wuxuu igu soo dhiibi jiray telefoonka ma qabanayo meel kasta waan ka baloogay keeda hadduu iga soo waco marka u tagtoo la hadal dhahdo ma doonayaan ku dhihi jiray dee calacalkiisa iyo ooyintiisa inaan maqlo sidii waagii hore dee aan telefoonadii adduunka jirin waraaqaha laysu qori jiray ayuu marka wuxuu samayn jiray waraaqbu intuu soo bal qoraalkayga inay aragto ila hadasho ma jirta anaga nafisiina biyo cabina idil ilaa hadda way nagu baashooleysaa laakiin markay xaaladu jeexjeexaan baa arkaynaa ku soco mar walba waraaqbu sidii dee waagii adduun ahay telefoonba jirin internet jirin waraaqaha laysu qori jiray oo kale ayuu iisoo qori jiray waraaq intuu maxaan ku dhahaa irbad isku duruu dhiiggiisa kusoo qori jiray waraaqdaas waan ku jeclahay idil waan ku jeclahay intaasoo dee kun ah sidaan anigu kii isugu qorqori jiray my brother ice thank you waa ka maxaan ku idhaahdaaye dee aan waraaqda intaasaa u fiiriyaan dhihi jiray naga kaxe waxa jeexjeexi jiray anayba xaaladda u jeexjeexdo ninkiiba telefoonka usa iga qabanayn bil markuu joogo biil male inankii yaraaya dee cashada iyo isukaaya saarnaayeen lacagtuba weynay xaaladiina jeexjeexday anigii halkanaan walac ahayoo dee sakaraad ahay hooyaday waa qof dee iska xanuunsanoo aan shaqaba aadi karin inankii gacanta nagu hayay wakaadee asaguna sariirku uroo shaqaba uun shaqaynaynba waata xaaladiina jeexjeexdaan ku ninkaa fariimihiisa haba itusin anayba xaalada u jeexjeexdayn maalinkii dambe kiibaa isoowa waxaan ku yidhi niyow intaas bil dhan ilamaad soo hadlin xaaskaagii baan ahaa xaq baan kugu leeyahay soo ma ogidina haddana uur baan kuu leeyahay uur horta waa idiin soo sheeka dhaafaye wiigii aan joognayba wuxuu siin jiray kiniini wuu idhihi jiray cun kiniiniga liq buu idhihi jiray ilaa intaan kasoo laabanayo inaad uur yeelatid maahan acuudu billaahi min ashaytaani rajiim markaas waxaan ku yidhi kiniinigii waan liqi jiray kiniiniga anigoo liqayoo cunaya uurkiina aan yeeshay ilaa meesha ciqaabbaa ka socotee waa ka maxaan ku idhaahdaaye igu yiri naayaa uurkaa sheegaysa waa maxay soonu kiniiniga ku siin jiray uurka aniga iimaba lihidba anigu kiniini baan ku siiye ka hortaga uurba iimaba qaadaysidba anigana uurkaa maba lihiba meeshaad ka keentay adiga kuu taalaa waxaan ku yidhi uurka adaan kuu leeyahay adaanay og adaana ilkaha iga tuuray maxaan ku idhaahdaay anuu wax kalena ma aqaan astaqfirullah ilaahay intu kaa daadiyo weliba ilkaha barkaaga tagaa aamiin yaa rabbi maca sonkor wax kalena ma aqoonin baan ku yiri uurkaana adaa iskale wuxuu igu yiri anigu horta wax ma kuu sheegaa aniga horta kuuma sheegina naag baan qabaa maasha allah tabaaraka allah anigu markaan Nairobi joogay wax la ii xareynayba naagtii la ii xareynayaabaan isguursanayba 2 cunug bayna ii haysaa maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah anigu sharci weyn ma qaadan buu yiri naag Mareykan joogtaa qabaa 2 cunug ay ii haysaa ilmo kalena ma rabo maxaan ku idhaahdaa imana soo sheegan kartid waadna iga furanta maasha allah tabaaraka allah wax lagu farxo
somehow والله wax lagu farxo saaki hadaan dareemayna dhamaantayo aada weyn bulaleerka noo shida bulaleerka ku soo wallaahi cabdiqaadir oo caawa waxaad wataan saadi wallahi dhinacna waan ka naxsanahay inoo dhaxayse ku soo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhoolke heestaasaaban soo xasuustay bacaawe aad iyo aad waa faraxsanaha bulaleerka noo shida ku soo walaal waata dee anigii qaraaca naxdin meeshii aan fadhiyey ayaa dhidid horta iga soo booday gacmihii gariiray telefoonkiibaa iga dhacay hooyadii way ag fadhidaay way maqlaysaa markaa hooyadii iyo reerkoodii oo dhan way guureenoo halkaa ay nairobi u guureenba islaantiina waa la kaxiyey caruurtiina intii hadhayna kenya nairobi joogaan waa garta hooyadayna way ag fadhido markaa u sheegay waxay tiri dee nabsigii baa ku hayo maalinkii horeba hooyaday way idiin soo dhaafay way igala talis waxay tiri inanka yar ee aada 2 sano ee rajayga ah ee miskiinka ah ee 2 sano dahabkaagiyo sariirtaadiyo fadhigaaga ururinaya lacagtooda nabsi ha ka gelina iska guurso ninkan iska daa waa garta may waxaan ku yidhi hooyo inankaas asagu siduu iigu rafaadayo maxaan ku idhahdaa bulaleerka bam haye ma jabkaygaa bululayr la isugu shidayaa lacaaw maxay gaarta wallah ku soco waa ka maxaan ku idhaahdaaye nabsi ha ka gel nabsigu waa xun yahay joog hooyaday way ila talisay markaasaan nuura tankiihibo waa ka maxaan ku idhaahdaaye dee sidii hooyo markay igula talisay aan taladeedii hooyo aan qaadan waaye hooyo marka way ag fadhido markuu sidaa igu yiri waxay igu tiri dee ilmaha yar inuu aabanimada uu diido uunbaa qaladahe intaas kugu dhacaysa anigu waan iska ogaa waayo nabsigu ma fiicna waxaan ku yidhi waayahay baan ku yidhi hooyo iska samir bay igu tiri hooyo nabsi adaa galay ina yaroo ku jecel oo wax walba diyaar kuula oo nolosha rafaad iyo raaxaba isla qaybsan lahaydeen ayaad maxaan ku idhaahdaay adigu ka dooratay ninkaa marka ninkaas inuu taa kugu dhagayaan waa thank you bulaleerku yaan istaagin ku soco marka dee arintii xaaladii sidiiba ii jeexjeexday inankii markuu dee aan la hadli waayo oo sakaraaday oo xanuunsaday wuxuu sameeyey inuu waa wareey rihaan Suleymaan ku soco bulaleerka maxaan ku socdaa waxay ka naxay caawa ma joogaan meesha waxaa dhacday marka in uu inankii markaa aqalkii iyo dahabkii iyo wixiiba intuu gatay buu iska tegay asagu markaa meeluu aaday isagu war uma haya inankii wuu baxay unbaa laygu yiro meelaha afrikooyinkaa kaluu aaday markaa waxaa laga sheegay inuu South Africa aaday uu yiri dee meeshan oo dhan baa iskaga tegaya aabihii iyo roorkoodii intay aqalkii iyo dahabkii lacagtii uga soo celiyeen oo u gadeen ayaa la yiri orod dhulka iska aado waa intaasood gabadhan dee maskaxdaada ka baxdaay waa garta queen thank you wataasaa muna iga tujisay muna dheeman thank you waraxay wax iga naxa jabkayga ka naxa ma weynaye waa ka maxaan ku idhaahdaay anigii halkii aan sakaraad reerkii duruuf heer waxaan gaarnay dee anagii jiiraankii iyo dadkii dariska ahaa ay noo qaadhaamaan oo wax naloo soo ururiy bil walba wax laysugu kaayo soo dardaro wixii hooyaday anigii meeshii baan walacahay tabcaanahay waxay hooyaday xitaa inay wax warwareejiso ay bilowday hooyadayoo xanuunsan oo lugka jaban oo lugtii si xun u kabanto oo aan socon karin anigii xaaladdu ay jeexjeexday inankiina uu iska tegay wadankaba ka tegay xaamilaa noqday xaaladdu waxay socotaba waqtigu wuxuu iskuraba waan umulay waxaan umulay 2 mataana
reerkoodii bay hooyo marka raadisay reera niman ay qaraabo ahaayeen bay la hadashay oo markii maxaan ku idhaahdaaye la guursanayay ogaa oo dee isaga qaraabadiisa ah bay hooyo raadisay waxay tiri ninkii dee gabadhii uurba u yeelay wuuna soo faray marka dee arrintaa inaad gashaan baan doonaynaa oo waana la xumeeyey dee aabbe iima joogo wiil weyn iima joogo oo walaalkaya ninkiina wuxuu ku yiri anigu naagtan waxaan uga tegayba iyadoo uur laabay ii timiba xaalad kalaaban galay naag uur leh oo ciyaalo suuqad ah baa la ii qariyey oo la ii soo xareeyey uurka aniga iima lahayn marka arrintaan ayaa laydinka maqlin xaaskaygii reerkaygana inay maqasho ma rabo kuwii marka arrinta ogaabuu sidaa ku yidhi لا حول ولا قوة إلا بالله نفسي وكاس والله هي wuxuu yiri ma doonayuu yiri naagtani inay telefoonkayga soo wacato uma baahli iyadoo uur la way khiyaantay gabadh yaroo fiican oo fariidoo gurigooda joogtaan ku ogaa gabadh ciyaala suuqadahoo suuqa gashay oo xaamilo ah ayaaba maxaan ku idhaahdaaye aniga iisoo gashay meesha markii lagu yiri war waqtigii aad u timi iyo gabadha waqtigay ilmaha dhashay way isleeyihiin aan ku dambaabina wuxuu yiri waxaas waxba kama jiraan inantani uur bay الكابتن محمد حاج ثانك يو هي inantani uur bay lahayd adigu odayaashii reerahoodii wuxuu ka dhaadhiciyay inay inantani uur lahayd hooyadana waxaa lagu yiri gabadhaada dee adaan war ahayne idinku isku laabta hooyaday war wayay haysa qaracan dee annaga meeshiiba waa kale noo beriyey ilmo bilaa aabba ah ceeb ina lagu sheekaysto in magaaladii oo dhan dee la dhaho gabadhii waxalbay dhashay gabadhii waxay samayseen miyaad ogtahay ilaa waxay u diidaysay wiilka yarkaa waxay islahayd ninka meelaha ka yimaha ku qariyo ilaa gabadhi wiilka waxay uga cararaysay anigii baaba bad kala galay ceeb magaaladii oo dhan xaafadii oo dhan ina lagu sheekaysto umashii baan ka baxay ilmihii yaraa markay xoogaa dhowr bilood soo gaadheen oo markaan iridda istaagaba dee laygu sheekaysanayo oo cashka ceebtu nooga daran tahay ilaan dad baaba caydh ahoo sharaf ku nool gabadhii ciyaala suuqada ahayd iyadoo xaamilaha ninka beenta u sheegtay guriga u gashay aan noqday ilaa waxa reerihii daris baan ahayn dadkii dad istaqaanaa isku xaafad baan ahayn adduunkii isla qarxay anigii ilmihii xitaa aan haysan kari waayey ayaa waxaan go-aansaday waxaan ku yiri hooyay anigu waa iska tahriibayaa waan baxayaa ilmaha yararkaa ama hay ama iska tuur labadii mataanaha ana magac maxaa loo bixiyay aabba maxaa loogu magac daray aabbaba dee mayagaale wax loo markaa dhowr bilood bay joogaan oo ayagii unbaan magacyo u bixinay nafsigaad gasha ubadkaagii gaadhay ka waran nafsigaad gasha adig kuguma ekaan ubadkaagii u gaadhay ubadkaygiibuu gaadhay waxaa dhacday marka waxaa dhacday markaan joogi waayo meeshaan ku yidhi hooyo waan iska baxayaa ma joogi karo hooyo xaafadan ceeb darteed baaban u joogi karin markaan waan iska tahriibaya hooyo meelahaasaan aadaya waxaan ku tahriiba ma haysto waxaan meel ku aada ma haysto tahriibtu aad qarash badan iyo waxa dhow kusoo furtiyo markii lagu xidho ayay u baahan tahay waxaan ku yidhi hooyay haddaanan xitaa tahriib fog gaari karin meelaha kale ayaan iska tegayaa marka waxaan isnaqaanaa walaalkeed uu yahay dadka basaska iyo waxyaalahaas ilaa Kenya u kala kaxeeya waxaa dhacday inaanu magaalada aan joognaa markaa waa magaalo gaalkacyo la dhaho gabadhaanu daris ahayno iyadana isnaqaanaa walaalkeed marka xafiis ku lahaa meesha oo basaska iyo uu ku lahaayo basaskaasu xeryaha qaxoontiga dadka meelaha keeni jira ilaa Kenya inantiba waxay igu tiri gaariga walaalkay baan raacaynaayo waan baxaynaayo maxaan ku idhahdaa Kenyaan aadaynaa jaamacad baan ka akhrisanay waxbarashaan u aadayaa walaalkay baa i kaxaynaya markaas waxaan ku yidhi walaalka xitaa meesha gaariga dhakadiisa
hala isaare hala ikaxeeya igala hadal baan ku idhi waa gartay inantiina walaalkeed bay igala hadashay waxay tiri gabadhaas way durufaysan tahay inay ilmaheedii iyo hooyadeedii reerkooda usoo shaqaysatay rabtaa walaalo caawi wuxuu yiri waayahay dhimale aniga iyadiiba 2 kursi buu noo baneeyo sidiibuu nagu kaxeeyey inankii iyo aniga inantii walaashi ahayd isku sibuu noo soo kaxeeyey ilaa iyo meeshii dee xuduudkiibuu naga soo gudbiyey ilaa iyo caasimadiibuu na keenay ilaa Nairobi buu na keenay guriga habaryartood oo gabadha loo wada awalba baa nala keenay gurigii baa nala keenay islaantii shaqay ii raadisay xaafad bay i geysay waxay tiri halkaa ka shaqayso meeshii baan ka shaqaysan jiray wixii biilka yarka aan qaataan reerkaygu u diri jiray hooyadayna mataanihii bay la fadhidaa inkastoon shaqo badan oo dad qurbaha ka yimaada aan u shaqaynayay oo lacagta aan u diray haddana waxba anigu nasiino la-aanta iyo shaqada badan uma arkeen maadaama hooyaday aystee meesha waxay xitaa at least ilmihii dabka ugu shubtay ay helayso mataanihii bay haysaa ilmihii kale uma shaqayn karto sidaan muddo markaan ka shaqaynayay inankii wuxuu tegay South Africa wuu shaqaystay markaa anigu ay kasoo wareegtay muddo 2 sano ah adigu 2 sano iyo weliba wax ay kasoo wareegtay baa waxaa dhacay in inankii show uu soo laabtay meeshii buu tegay wuu i waraystay meeshaan aaday waa loo sheegay wixii dhacay oo dhan Kenya iga soo daba tegay marka uu soo raadiyay kii ku jeclaa wiilkii jeclaa kii baa ku raadinaya weli kii baa raadinaya no isagaa laftirkiisu waa baac kale bay haye Nairobi imaaday xaafadii gabadhii soo kaxaysay oo loo soo sheegayo hooyadii reerkii uu tagay waa loo soo sheegay wuxuu ku yiri hooyo inaan raadinayo waxba ha u sheegin asagoo xaafadii lay keenay buu yimaaday waa gartay wuu weydiiyay aaway buu yiri idil markaas waxa lagu yiri waxay ka shaqaysaa xaafad heblaaye xaafad la dhaho ka fogo anaga naga fog bay ka shaqaysataa marka halkaas ay joogtaa wuxuu yiri ikaxeeyo ku yiri gabadhii ila socotay oo markaa jaamacad akhrisato guriga joogtay wuxuu yiri ikaxeey xaafadda ay joogtay igee maalinkii dambe gabadhii baa albaabka soo garaacday heblaaye waa soo baxbay ugu tir gaari bay banaanka dhigteen way gudahay soo gashay way ii yartay waxay tiri soo bax dee miyaadan aniga ii socon joog markaas igu tiri maya soo bax waxbaan kuu wadaa maanta way kaxaysay waxay tiri soo gal gaariga daaqadii iga furtay gal bay igu tiri daaqadii markaa saa u galayba maaski baa wejiga ugu xirnaa dee anigu inan yaroo la fadhuudhuubanoo tabcaana ayaan maxaan ku dhahda ogaaya ninkiio dee intuu neegar noqday feeruhu intaa leekaadeen oo dee geedkaa dharleego quruxda aad ka yaabisoo suud xidhanoo maaska ugu xidhan yahay bay waxay ugu tiri soo galgaariga waxbaan kuu sheegaynaa gow maxay xalalaha kugu jexjexo marka shirkii dambayna gelis asaguna darawalka agtiisuu fadhiyaa maasha allah markaan meeshii galay igu tiri arrin muhiiman kuu sheegi rabaa soo gal gaariga oo aan shirki galaan leeyahay walaalaha hawlbaad ii taale maanta maxaad ii sheegi rabtaa saaxiibe gudihii galnay buu asagana daaqada iska soo faray dhinaca igu soo fadhiista waasuu igu yiri salaamu calaykum وعليكم السلام بارسانا وفيري وان نحو حاسر ناكتي دي ميكم الشميسة محا قلدن سيداسو مسكيجيو مركان وعليكم السلام عدي واركي إنا نحسانها أنا جيو دي حالد مركان إتشحدو الدروفيسانو أسكا جيدي أنكو عايد شري أنا جا ما أنت دوشي دي ساريو حتى حدا يديه لهايد ننكي يبلها بان ودا حوغا وان سير ديسي لايو شيد يرو ii xareysan iyo waxaan iska xidhan lahaa astaghfirullah marka aniga booskiisii baan hadda ku jiraayo maadaama hooyadii mataanahaygii hayso
waxba ma gato 2 dirac oo umushi la ii keenayo shiida oo boorsada iigu jiraan dee mid iska xidhan lahaay oo iska yargiijin lahaaba waxba iimeeshii waatan khiyaantee iyo aamustay dee rabtay inay sabrayska iiga dhigto waa gartay aniga dee jikadii iyo waxaan ku yidhi suugadii iyo qumqumkii wixii aan shiilaya isaa iiga soo haadayaan oo agtayda la mari karin ayuu dee maaskigiisaa isaga qaada mise macnihii shaki baa igalay inuu isagii yahay iyo dee inuu qof kale yahay ile qofkii wejigii dhuubnaa ee rafaysnaa ilkihii iyo sankii dhuubnaa iyo wixii oo dhanba markan way dhammaadeenoo cabankiibaa ka sara maray ima garanaysid miyaa buu yiri markaan cabaar fiiriyo dee afkii aan saa u kala qaado kuma garanayaan ku yidhi ma hebel baada garanayn anigaan weligay ku iloobeyn buu igu yiri intuu gacanta saa iisoo qabtay oo aayar ma iga siiye gacantii shumis yaroo aada u naxariis badan buu gacantii iga siiye waxaa dhacday marka anigii cabdiqaadirow meel kale aad kusii jeeday youtubekan ku jira waxaan dhigayaa markaan ku yidhi kuma garanayo dee aan isku dhex yaacay shakina iga galay inuu isagii yahay iyo inuu qof kale yahay ayuu wuxuu igu yiri intuu gacanta saa iisoo qabtay igu yiri anigaan weligay ku ilaaweyn xaalad kastoo aad ku jirtidbe ayuu gacantii intuu saa iisoo qabtay gacantiioo dee waxaan ku yidhi suugadii iyo saliidii iyo wixii aan shiilaya ay ku yaalyaaleen ayuu intuu saa iisoo qabtay oo ayar mac iga siiyaan ku yidhi markaas anigii ilma isoo dhaaftay waan ilmadiibu ayar tiishbu intuu soo bixiyey ayuu ilmadii iga tirtir wuxuu yiri ha ooyin inankii marka darawalkahaa iyo inantiiba marka way naga degteen aniga isagiibaa gaarigii isugu soo hadnay ha ooyin aamu yaa heestaasu ii qaaday ha ooyina aamus waxaan ku yidhi ilmadiibuu iga tiray anigii waan isku ooyey sidaan macanihii dhibta booskiisii sidaan u galay sida anigii ilmahaygii la iigu inkiray xaaladda aan ku jiro ee macnihii aan guri waxaan joogaa dee dad madaxu leeyihiin dad qurbaha ka yimaaday dad dowlad u shaqeeyo xildhibaana xitaa ay kusoo degaan aanan dhulka dabada dhigin oo 24 saacaan kushiinka dhex taaganahay xaaladda iyo ninkiioo dee isbedelay oo quruxdii iyo barafuunka iyo waxa kasoo haadaya aada yaabays ninkaa maxaa ku tilmaami leedeen hablow waa royal baa dhalay soo maaha adigu waa royal oo dhala yaa waa anigoo dhalao waaba adigii halkaa taagan waxaan ku yidhi inankiiyo dee quruxuusan lahayn ilaan duruufta marka qofku durufaysan yahay wax ka foolxun maleh quruxuusan shacniga iyo quruxda iyo dee quruxdiisioo laba jibaarantay iyo carafta kasoo haadaysa iyo anigiyo dee xaaladii uu shalay ku jiraan ku caajiran dhihi jiray adigu maba labisatid shaatiga maad iska bedeji aan dhihi jiray anigiyo maanta xaaladii ku sugan guurkii iga xumaaday gabadhnimadii iyo dee wixii sharaftiiba dhammaatay ceeb kala soo magaaladaydii iyo meeshii aan deganaayo hooyada iyo ilmahaygii ceeb uga soo cararay runtii oo hintii wax i aamusiiya markii maxaan ku dhahda aan aamusi waaye oo aan fuuray ooy gabadhii iyo wiilkii soo laabteen oo wixii aamusiiya la waayey oon hiq gabay oon dee duufka iyo ilmada uu maanta dhan iga tirayo ayaan dee markii dambe waxaan ku idhi ay gabadhii isoo kaxaysoo tribal gudahan gelinayaaye way soo kaxaysay gurigiiba isoo gelisay isagiina wuu iga soo dabagalay walaalkeed baan ahay buu yiri xaafadii halkaasoo kale iska fadhiistay kursi baa loo dhigay ani gudaha isoo gelisay qolba i keentay gabadhii duufkii ilmadiiba iga tirtirtay waxay ku tiri wax walba xaaladeeda way ka warhaysay iyadu xitaa
oo weyla socoto dee qof aan isku magaalo ka nimiyo isku xaafad ahayn bay ahayd marka waxay igu tiri nafsigii baa ku haya marka dhib male wixii kugu dhici lahaana way kugu dhaceen asagana wixii ku dhici lahaa way ku dhaceen marka haddana asagaaba ku cafiyey oo kuu yimaaday oo kusoo raadiyey marka adigu hadda aamuha ooyin inantii sidii bay igu aamusiisay dadkeena soo weydiinay sheekada xaggan ka helnaa sheekadu haddii dhaafto page-keena youtube-keena ka daawada cabdiqaadir royal halkaasa ka helisaa haye ayuu guriga qolkiiba noogu soo galay inantii marka waxay igu tiri dharkan iska bedel duufka iyo dee waxaan ku idhi ilinta aan dharkii ka buuxiyey dharkiiba marka shiidkayga yaraaya meesha iigu jiray bay iisoo saartay wixiiba iga bedeshay maradii baa iska gashaday reerkii de waxay dhaheen inanka walaalkeeda u yimi miyaa gabadha maxaysaa ugu ooyeyso haabaa la yiri meeshii baan adigu ila joogay intii yarayda ula joogaa mar bal dhahaa dee hebel dabka aad saartay baa heblaaya kaa gubtaye soo dheeree inanka dee waqti kale aad sheekaysan doontaan ma kala dhargiysaan miya 10 jeeraa laysoo kor istaagaa adiga markaa jacaylka kugu soo laba qarxay anigu dee marka horta waxaa ii muuqda dee nafsiga aan galay dhibaatadii aan geystay haddaba nafsigu kuma muuqda lacagtaa kuu muuqata ninkii isbedelaad aragta anaa kuu sheegay oo dhibta hablaha haysta wey qofka kugiisa eegaan marihiisa eegaan ma fahamte qofka qalbigiisa ma eegtaan xaalada jeexaya ku soco wuxuu igu yiri hadda hawshaada shaqadaada iska dhamayso markaa xilli galaba ahayd wuxuu igu yiri shaqadaada dhamayso aroortii waagu markuu bariyana waan ku imaanayaa waan sheekaysanaynaa waan ku kaxaynayaa shaqadana waan kaa kaxaynayaa adigu aroortii baynu sheekaysanaynaa hadda shaqadaada iska dhamayso yiri iska nafis wuu iga tegay inantii asagii waa iga soo tageen aroortii waagu markuu bariyey asagoo dee awal hore suud buu xirnaayay haddana funaanad ku dhegan oo gacmo dheera ah oo murqihiisi kasoo baxeen oo dee nin jirkiisii hilibkiisii intuu soo laabtay quruxdiisa aad yaabaysid buu ahaa walba caate iyo duruuf unbaa kor saarayda isagoo funaanad cadiyo surwaal madow isku xidhan oo dee kaalay arag dee intii shalay kaba qurux badan ayuu haddana iridii soo istaagay wuxuu yiri soo bax buu yiri boorsadaadana soo qaado adkaata gacantan soo qabsada haa maxaad dareemaysaa marka adiga wuxuu igu yiri boorsada soo qaado ku yidhi xagee usoo qaataa boorsada may waan ku kaxaynayaa soo qaado boorsada markaa gaarigu ku jira anigana waan kor taagana gacantu saa ii hayaa marka anigu aan arkaba ilmaa iga soo deganaysa gaarigu kasoo degtay ilmadiibuu iga tira wuxuu igu yiri ha ooyin boorsadaada soo qaado ina keen waxaan ku yidhi xaggaa ii wadaa wuxuu igu yiri xaafadii waxaan ku geynayaa saaxiibta kadibna waan wada hadlaynaa shaqadan ma sii joogaysid soo bax buu igu yidhi gabadhiibuu u tegay wuxuu ku yiri cabdiqaadir in shaashada kugu dhegtaan u maleeyay waxbaad fiirinaysa wuxuu ku yiri gabadhii aan u shaqaynayo markaa u tegay wuxuu yiri waan fasax baan nahay shaqadan gabadha markaas waxay ku tiri bisha ha dhamaysato isku yiri xitaa bisha intay shaqaysato xitaa haddaadan lacagteedii siinayn kaama rabna iska hayso ku yiri iska hayso ku yiri intaa ay kaa shaqaysatay bisha haddaadan siinayn bil ma dhamaysanaysa iska hayso ku yiri waa gartay maya gabadha shaqa ii haysay qofka lama kaxaysan karo waa inaad fursad isiisaa aan qof kale ku raadsado naa lacagta kaamaba rabnee nabadaybu ku yiri soo ful gaarigu yiri gaarigiibuu isaaray dhinacaygu soo fadhiistay darawalkiibu ku yiri ina bixi oo kuwaasi maasha allah dhahaa kuwaas maasha allah ma dhahayaan dee laakiin markaad ka sheekaysa waxa aad u jeexjeexeen way habaartamayaan soomaalidu habaarka aad u taqaana laakiin alxamdulilah iyo maasha allah waa idinku taag waa inaa carabkiina baro inta carabkiina saa usoo wada qabto inaa saadi ka wada qabto way timaadkaate aad iyo aad marka siduu noo sii waday wuxuuna geeyey makhaayad meel makhaayad oo qurux badan aada u qurux badan oo meelo khaas ahoo dadka lamaanaha inay fadhiistaan loogu talagalay leh
ayuu maxaan ku idhahdaye meeshiibuna fadhiisiiyey waan fadhiistay kursiga iga soo horjeeduu fadhiistay waxaa dhacday marka inuu wuxuu yiri maanta aad baan u faraxsanahay cunto badan oo aada u badan oo kala duwan ayuu dalbay wuxuu yiri cuntee markaad cuntaysid kadib waa sheekaysanayna cuntee buu kurintaan hadal kale kuu gelin haa wallahi rageed baa wallahi maantaan cuni karaa cuntaba iga degmayso macnihii waxaan aan ku jiro waxaan isleeyahay amaad hurdaysaayo ay riyo tahay qofkii aad amu mararka qaarna waxaan isleeyahay armu ninkanu dee meel ku wadaayo ku dil rabaa uu ka aargoosasho uu wadaa uu kaa aargoosanaya markaan cuntadii soo dhigay intaasoo cunto kala nooca wax yar baan adigu saa uga waxaan ku yidhi cuntaba igama degisaan ku yidhi waan dhargebis weeyaan cuntadiiba cunaasana alaabtiibuu yiri gura meeshii waa la nadiifiyey markaas wuxuu igu yiri intuu gacantisaa ii soo qabtay waan ku cafiyo igu yiri ka welwelin aniga xaggayga inaan weli cuqdad kuu qabo wixii aad igu samaysay weligaa inaad waxba igu samayn oo kale iila mid tahay hadaa maanta adiga ku hor fadhiyo ma ogtahay markii aan adiga aan kaa tegayba inaanma kusii fikerayeyba sidaan adiga haddana kuu heli lahaa inaan usii shaqaystay oo horumar usii gaadhay ma ogtaha ajaayib shiikhow adiga dartaa usii shaqaystayba inaan adiga dartaa usii shaqaystay oo noloshayda isbedel kale ugu sii sameeyey wuxuu yiri horta aniga alxamdulilah noloshayda way isbedeshay nin adeerkayaho waxaan u tegay hantiila ahoo South Africa jooga ninkii wuu caawiyey lacag buu isiiyey nin kale oo abtigayo aan weligay arkin ila hooyaday anoo yar bay dhimatay asagana waa laygu xidhiidhiyo Mareykan jooga lacag buu ii soo diray waxaan furtuu yiri meel supermarket oo weyn aniga hadda wuxuu yiri anaaba intaas oo Soomaali ii shaqaysaa noloshayda habeen intaa aan maqnaa qalbigayga kamaad bixin habeen walba haddaan wax cunayo adaa ila cuni jiray haddaan seexdo adaa ila seexan jiray qalbigayga habeen kamaad bixin waa gartay haddana waan ku cafiyo yiri diyaar ma u tahay mar labaad inaa nolosha ila qaybsatid maxaad u maleynaysaan inaan ku dhahayo inaan ku dhahayaa dee sujuud ilaahay sujuudka lugaha qabsade haabaad dhahaysaa oh my god waxaan ku dhahayaa inaan mudkan ka oynayaa ka waran waxaan ku dhahayaa maxay tahay waxaan ku yidhi may mayaan ku yidhi kuma aaminayaan ku yidhi mayaan ku yidhi kuma aaminayo subxaanaka yaa cadiim adkaatay oo fogaatay waxaan ku yidhi ninkaad aan jeclaaya aan adiga kuu dhibaateeyey dartiis waxaan u dhalay ilmo wuxuu iga riday ilkihii waxaan jeclaaday jacayl waali ah wuxuu iga riday noloshii oo dhan wuxuu iga qaaday sharaftii waan aaminay wuuna khiyaanay marka adiga oo aan ku dhibaateeyeyna intee in leeg baad khiyaameyn kartaa see kuu aamina waa waree waxaan ku yidhi kii aan anigoo dhib u geysanba aan guursaday aan adiga kaa raacayba hadduu khiyaamay oo ilmihii xitaa igu inkiray adigoo aana maxaan ku idhahdaayey aanan ku khiyaamin adigoo aan ku khiyaamayna sidaad ii geli doontaa
waxaad doonaysaa adna laba kale inaan intaad uurkooda i yeeshid adna adiga tagtid oo adiga aarsatid baad doonaysaa marka intaa waan ooyayaa aan leeyahay ilmaa iga socota يا والله بالله uu kacay wax yar isugu waa kuu soo noqonayaa meesha guduhu galay uu ii soo laabtay wax yar kadib waxaa la keenay keeg ay ku qoran yahay magacayga oo sawir aan intaan meesha fadhiyay uu iga qaadayn lagu soo korsameeyey wuxuu yiri anigu kuma khiyaamay oo yiri hambalyo waxaa noqon doontaa xaaskayga wixii dhib ku soo marayna waa anaa kaa meeri doono haka welweli سبحان الله هاي شاشة هاي مر إنه قراع والله بالله طلع نكاس عجيب والله هاي markaasaan waxaan ku yidhi kuma aaminayaan ku yidhi horta waan kasoo fikirayaa xaafadii igee baan ku yidhi wuxuu yidhi intay doontaa kugu qaadato intaad i aaminaysid laakiin aniga waxaan kuu ballan qaadayaa ilmaha lagugu inkirayna inaan anigu aabbo u noqdo anigu waan ku aqaanaa waxaad ahayd gabadh sharaf leh haddii aad gabadh ciyaala suuqada tahayna ninkaamaad jeclaan lahayd haddii aadan isaga daacad u ahayna dee maxaan ku idhahdaayey anuu intaas ku sugayay waa adiga isaga dartii iiga tegay inaad asaga daacad u ahayd inaad asaga jeclayd inaadan ciyaal suuqad ahayn anigu maalin walba markaa shaqada kasoo baxday xitaa markuu asagu kula socdo waa kusoo dabageli jiray asagoo aad jeceshahay baad iska ilaalin jirtay asagoon ku qabin inuu korkaaga taabto war maasha allah dhaha jacaylku hawaar maasha allah iyo loof shaashada ka dhiga maasha allah iyo loof ma ogtahay mar walba markaad shaqada kasoo baxday inaan kusoo dabageli jiray oo aan ilaan qof wax jecel baan ahaaye ilaa intaad guriga ka imaanaysid aan kula socon jiray inaad gabadh ciyaala suuqada ahayn waan ogahay marka hadduu asagu ilmihiisa inkiri usa ilmo u baahnayn anaa aabba u noqonaya anaa dhahaya anaa ka dhalay anigaa kugu qaadanaya anaa kula korinaya anaa kuu soo kaxaynaya waa inaad adigu yeeshaa oo aadan mar labaad i xumayn maadaama waxaasoo dhib aanu marayo anuu hadda waan heli karaa inaan gabadhaan rabo guursado lacag waa haystaa duruuftii shalay ima hayso laakiin sidaad adigu jacaylkaagii uga gungaadhay khasaaraba ha kugu noqdee ayaan doonaya anuu asagoo faa'iidaa inaan uga gungaadho inankii laba beri kadib inantii saaxiibada ayaan u sheego hooyaday baan arintii u sheego hooyo waxay igu tiri wuu ii yimi bay igu tiri wuu isoo maray anaana usoo sheegay inaad halkaa joogtid anaa informationka dhan soo siiyey marka haddii aad duca rabtid hadduu rabo ha ku xumeeyo nafsina 2 jeer kuguma dhici doono qof muslimana 2 god lagama wada qaniine hadda yeel guurkiisa hooyaday sidii bay igula hadashay iigu dacaysay waayahay baan ku idhi isla markiiba hooyaday iyo reerkii suuriyadoodii baa loo diray iyo adeeraday waa lala hadlay wuxuu igu yiri waan tegaynaa ilmahaaga yaraa baan kaxaysanaa South African ku geynaya waan soo baxnay Soomaaliyaan tagnay hooyaan ilmihii yaraa ka qaadnay waxaan u tegay show wuxuu la hadlay nimankii shaqaalihiisa wiilashii saaxiibadii buu la hadlay waxaan u tegay guri ka weynaaday oo sharaxan oo waxaan oolin aysan jirin markan dahab ii gad ma dhihin aqal ii dhig ma dhihin dee adduunyo dhan kala ma hadlin waayo dee ma doonayaba inaan kala hadlo habeenkan gurigii tagnay intaa ka horeysa aanu isku mehersanayn xitaa salaamu calaykum xitaa imuu dhihin
guri aad leedahay inaan ku geeyo moogi xitaa kuma salaamayo igu yidhi waa garta aniga ilmahaygii buu na kaxeeyey South Africa na geeyey guri sharaxan waxaan ku yidhi anigu intii markaa Soomaaliya joogay baan isa sii sharaxay isa sii hagaajiyey aniga ilmahaygii ayaa labadeedii cunug baanu markaanu de hawsheedii habeenkii dhamaysanay hareeraha ka seexana ilmaha xitaa wuxuu yiri meel gaar lama seexinayo maadaama ay adigu markaa yaryaraayeenoo ay 2 sano iyo wax jireen wuxuu yiri qol gaar xitaa lama seexanayo ilmaha dhexdeena seexanayaan waa hore yaa ilmihii maadaama guri weyn oo 5 qol ka kooban uu noo sharaxay wuxuu yiri inta kale maalinkii jooga laakiin ma doonayo yiri habeenkii ilmuhu xitaa inay meel kale seexdaan dhexdeena ay seexanayaan waa hore كعبسني وقرتها ما شاء الله waxaan galay nolol farxad leh wax alla wax shaqaala la ii qabtay wax alla waxaan u baahanahay guriga la ii soo dhigay nolol waxaan galay de boqorada Ingiriiska nolosha ku noolayd oo kala galay nolol adduun baan galay thank you for your subscribe hey nolol aad u qurux badan baan runtii galay markii isla markiiba markaan waxay joogay uur baan yeeshay ma sha Allah asagiina wiil baan u dhalay haddana wax yar kadib gabadh baan dhalay ma sha Allah 4 caruur ay joogta markii uu yimaado ilmihiisa iyo kuwayga isku si ayuu u yihiin ilmaha cuntada afka u galgaliya kuwaygii anigaan hore u haystuba ka jecel yahayba kuwaan asaga u dhalay asaga kaxeeya meel waxbarasho abuu geeyay markan de 4 sano ay gaadheen markii ay 5 sano gaadheen asagiina aan 2 caruur u hayo anigiina de horeerkaygii xitaa guri uu u dhisay inaan walaalkayo iga yaraa uu soo kaxeeyo uu la shaqeeyo maxaan ku idhaahdaa nolosheedii oo dhan isbedeshay de nolol adduuntii ugu qurux badneed aan galnay ayaa ninkii soo raadiyay hooyo reerkii ay soo hadleen oo dhaheen caruurtii baan rabnaa ninkii waxaa dhacday in asagiyo naagtii isku dhaceen caruurtii 3 caruur ay naagta u dhashay 3diiba ay gaaladu ka qaadato lagala wareegay subxaanaka yaa kii kale xaaladaha jeexjeexay asagana inay tabtii xaaladdu aniga ii jeexjeexday ee nafsigii ku dhacay ilmihii gaaladii ka qaadatay naagtii ay dacweysay isagii xabsi galay asagoo xabsi ku jira ayuu hooyadii la hadlo wuxuu ku yidhi gabadha nafsi baan ka galay waagii horena laaluush baan ka qaadi jiray oo jacaylka jecelayd baan uga faa'iideysan jiray marka dambena ilmaha anaa ku inkiray anaa ilkaha ka tuuray aniga hawsha bilaabay gabadh yar bay ahayd nafsi baan ka galay 3deedii cunugna gacan kuma haya ana jeel baan ku jiraa marka gabadha cafisa la iiga soo qaado balaa ku cafisay hooyadiisa hooyada la soo hadasho waxay tiri de ninkii shalayto indhaha noo cadeynayo lahaa in ilmaha nama dhalay naag uurla meesha la iigu soo xareeyay naagtaydu yay maqlin indhaha noo cadeynayay xabsi buu ku jiraa 10 sano oo xabsiyaha lagu xukumay halkaas ku jiraya sharcigiina waa lagala noqday xabsiga markuu dhameystaan Soomaaliya laga soo tuuri doonaa ilmihiina caawa alla meel ay jiraan ma sheegi karno iyo meel la geystay 3 cunug marka ninka ilmihiisa yarka nafsigu ka galay ayaa ku dhacay waxaan doonaynaa in la cafiyo ilmahayagiina magacaygii la siiyo macafilida hablow yes or no ina ilmahayagii ay yihiin aad ogaataan nalka markaas sheekadaas hadday taagan tahay inantaas South Africa deganto igala soo xiriiday waa team adkaatay ayadii saaxiibkeed wayna wada daawanayaan ninkii xaaladda soo jeexjeexday rafaadka badan jacaylkiisa u soo maray de anigu waxaan dhihi karaa waa cilmigii guuleystay weeyaan cilmigii dhintay ma waa cilmigii guuleystay ma sha Allah